maxaan ka ognahay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Xamaas qalab dagaal oo aan macno badan lahayn gacan ku samaysa qiimo jaban baaxad ahaanna aad u yar laakiin khasaaraha ay geysanayaan uu yahay mid aan la malaysan karin waa kan ay Xamaas wacdaraha xooggan kaga dhigtay dagaalada ay kula jirto ciidamada Israa'iil waxa loogu yeedhaa hubka dadka taagta daran ay isaga difaacaan kuwa cadowga ah ee xoogga badan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Xamaas waa cabsida ugu weyn ee xilligan ay wajahayso Israa'iil xitaa warbaahinteedu waxay awoodi weyday in waayaheeda ay laabta ku haysato waxaana si weyn ay muddooyinkii la soo dhaafay u qaadaadhigaysay cabsida diyaaradaha macmalka ee lagu farsameeyo marinka Gaza ma aha diyaarado lagu farsameeyay warshadaha waaweyn ee hubka adduunka balse waa farsamo ay hindiseen injineero ku nool gudaha marinka Gaza warbixintan waxa aynu ku faahfaahin doonaa diyaaradaha dagaalka ee aan duuliyaha lahayn ee ay adeegsadaan kooxaha iska caabinta Falastiiniyiinta ah kuwaasi oo dagaal hubaysan muddo dheer kala soo horjeeda ciidamada Israa'iil ee duulaanka ah dagaalkii 7 bishii Oktoobar ay Xamaas ku qaaday ciidamada Israa'iil oo noqonaya kii ugu cuslaa in muddo ah kaasi oo khasaare xooggan soo gaarsiiyay ciidamada duulaanka ee Yuhuudda waxa si weyn u soo shacbaxayay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee lagu farsameeyay gudaha magaalada Gaza waxa lagu tilmaamay diyaaradaha kani in ay yihiin kuwa aan la'aantood aanay suurtagal noqoteen fulinta weerarkii guutada Ciisadiin al-Qasaam ee garabka hubaysan ee Xamaas ay ku qaaday ciidanka Israa'iil waa diyaarado lagaga hortagay ciidan ka mid ah kuwa dunida ugu horumarsan kuwaasi oo adeegsada sirdoonka caalamka ugu casrisan waxa ay kamaraduhu qabteen diyaaradaha kan oo joog hoose ku duulaya isla markaana weerar ka geysanaya fadhiisimaha ciidamada Israa'iil waa diyaarado dagaal oo qiimo ahaan aad uga hooseeya marka la barbar dhigo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Mareykanka sida tan lagu magacaabo Reaper oo qiimaheedu $20 milyan uu ka badan yahay mid ka mid ah diyaaradaha ugu caansan ee Xamaas ay adeegsato waa diyaaradan la yiraahdo Zawari waxa loogu magac daray farsamayaqaan reer Tunisia ah oo la oran jiray Maxamed Zawari oo maskaxdii ka dambeysay ama hindistay diyaaradda tan waa kuma Maxamed Zawari waxa uu ku dhashay magaalada Safaaqis ee dalka Tunisia sanadkii 1967 culumta muhandisnimada ayaa waxa uu ku bartay goobaha tacliinta sare ee dalkiisa intii aanu baranin duuliyanimada Liibiya iyo Suudaan oo u dhalashadeeda qaatay ayaa uu u safray ka hor intii aanu aadin dalka Suuriya sanadkii 2006 ayaa uu ku biiray garabka hubaysan ee Xamaas ee Ciisadiin al-Qasaam lagu magacaabo waxaana uu ka mid noqday tirasha ugu adag ee ay kooxdu leedahay kadib markii uu soo kordhiyay mashruuca samaynta diyaarado dagaal oo aan cidi wadin Zawari ayaa waxa uu hogaaminayay koox injineer ah oo ka tirsan guutada Ciisadiin al-Qasaam kuwaasi oo booqasho sahamin ah ku tagay dalka Iiraan waxa uu la kulmay khubaro ku takhasustay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn waxaana uu sheegay sida uu diyaarka ugu yahay in kooxda Xamaas ay hesho diyaarado noocaasi oo kala ah isaga iyo kooxdiisa uu macalinka u ahaa waxa ay dhameystireen ilaa iyo 30 diyaaradood ka hor dagaalkii Al-Furqaan loo bixiyay ee 2008 ka dhacay marinka Gaza injineerkan ayaa marinka Gaza waxa uu ku sugnaa 9 bilood waxaana uu dhameeyay dhismaha mashruucani iyo horumarintiisa Zawari waxa loo arkaa in uu yahay mid ka mid ah hogaamiyayaashii qaybta weyn ka qaatay mashruuca diyaaradaha loo yaqaano Ababil oo ay adeegsato guutada hubaysan ee Ciisadiin al-Qasaam kuwaasi oo door weyn ka qaatay dagaalkii loo bixiyay Casfil Ma'kuul ee 2014 ka dhacay marinka Gaza diyaaradaha soddonka ee Zawari uu farsameeyay waxa markii ugu horeysay si rasmi ah loogu adeegsaday dagaalkii Sayf al-Qudus oo dhacay 2021 mar kalena diyaaradahani waxay wacdaro xooggan ka dhigeen furimaha dagaalka bilowgii weerarkii duufaanta Aqsa ee bishii la soo dhaafay dhacay awoodda diyaaradahan sida ay sheegayaan khubarada militarigu diyaaradaha kani waxa ay muhiimad weyn ugu fadhiyaan Xamaas dhowrkan arrimood ayaana sabab u ah tan koobaad waxa fudud in si dhib yar loo hawlgeliyo in gacanta lagu qaado lana dhaqaaqo baaxadda culeyskeeda oo aad u yar awgeed uma baahna in ay raacdo khad diyaaradeed waxaana ay awood u leedahay in laga soo diro meel kasta oo laga arko in cadowga Israa'iil uu ka dhow yahay xajmigeeda oo aad u yar awgeed iyo heerkulka ay ku shaqaynayso oo hooseeya ayaa waxay awood u siinayaan in markasta ay ku dhawaato ama ay gaadho bartilmaameedkeeda duulimaadyada diyaaradahani aan duuliyaha lahayn ayaa waxa ay su'aal geliyeen fashilka awoodda Israa'iil ee nidaamka ka hortagga gantaalaha farsamaynta diyaaradahan aan duuliyaha lahayn markii ugu horeysay ee diyaaradahani si rasmi ah loo soo bandhigay waxay ahayd 2015 xilligaasi oo kooxdu ay u dabaaldegaysay sanad guradeedii 28aad ee ka soo wareegta aasaaskeeda maalintan waxa hawada magaalada Gaza qabsaday diyaaradaha dhoolatuska ee ay kooxdu soo bandhigtay
ujeedka diyaaradaha kan ayaa waxa ay ahayd indha-indhaynta iyo fulinta howlgallo kooban ka hor intii aanay ka mid noqonin diyaaradaha isbiimaynta ay kooxdu adeegsato. waxa ay awood u leedahay in ay xambaarto walxaha qarxa oo khasaare xooggan soo gaadhsiin kara ciidamada cadowga. Xamaas ma haysataa diyaarado kale. sida laga soo xigtay warbaahinta Falastiin, waxa Xamaas ay leedahay dayuurado kale oo dagaal oo aan ahayn Zawaari, sida diyaaradda lagu magacaabo Abaabiil iyo Shihaab. 2014 intii lagu guda jiray dagaalka la magac baxay Casful Ma'kuul, waxa dhaqdhaqaaqa Xamaas ay soo bandhigeen diyaarad drone ah oo lagu magacaabo Abaabiil, taasi oo dagaalka qayb ka noqotay. Abaabiil waxa loo adeegsaday fulinta 3 nooc oo howlgal ah: sahaminta, weerarka iyo ismiidaaminta. 13 bisha May 2021 intii lagu guda jiray Sayf al-Qudus weerarka loo bixiyay ayaa guutada Ciisadiin al-Qasaam waxa ay daaha ka qaaday diyaarad ismiidaamin ah oo Shahaab la yiraahdo, taasi oo lagu bartilmaameedsaday xarumaha gaaska ee ku yaala xeebta waqooyiga Gaza ee Israa'iil maamuleysay. waxaana sidoo kale ay weerar ku qaadeen ciidamo ka tirsan Israa'iil. wargeyska ka soo baxa Israa'iil ayaa waxa ay sheegeen in warshadaha military ee Xamaas ee marinka Gaza ku yaala ay sameynayaan korokac xoogan, iyaga oo muujiyay in ay jirto cabsi ay laamaha amniga ee Israa'iil ka qabaan in Xamaas ay horumar ka gaadho diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. dhinaca kale waxa loo ogyahay in Israa'iil ay ka mid tahay wadamada horumarka xoogan ka sameeya diyaaradaha aan cidi wadin ee lagu farsameeyo gudaha Israa'iil iyo qaar kale oo ay ka soo iibsato wadamada Mareykanku uu ku jiro. sidaasi oo ay tahay haddana diyaaradaha macmalka ee gudaha Gaza lagu farsameeyo waa cabsi mar walba ku taagan. khaarajintii Maxamed Zawaari oo ahaa maskaxdii ka dambeysay diyaaradda magaciisa wadata ayaa bari dambe waxa lagu khaarajiyay dilkiisa oo dhacay Disembar 2016 waxa loo aaneeyaa in ay ka dambeeyeen sirdoonka Israa'iil, walow Israa'iil ay eedayntaasi iska fogeysay. laakiin fikradda samaynta diyaarad aan duuliye lahayn oo ay helaan Xamaas waxay laayay hadda tahay guul weyn oo ay gaadheen Zawaari iyo kooxda uu hore uga tirsanaa.